waxaan fursad u helay oo khadka telefoonka ku jira cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo ku sugan magaalada addis ababa ee dalka Ethiopia kadib markii laga soo daayay xabsi uu ku jiray in ku dhow muddo sanad ah. waxaan ka wareysan doonaa sidii looga soo qabtay dalka Soomaaliya, xarigiisii iyo sii deyntiisiiba. cabdikariin, soo dhawow, aad baan kaaga mahad celinayaa fursadan qaaliga ah ee aad siisay iyo waraysigan aad iga ogolaatay. waan dhawahay, aad iyo aad baan idin salaamaya walaalayaal. su-aashayda ugu horeysa cabdikariin, muddo ku dhow sanad ayaad xabsi ku jirtay, ugu dambeyntiina waa lagu soo daayay. farxad noocee ah ayaad dareemaysaa kadib markii aad xorriyadaada dib u heshay cabdikariin muuse? walaal waad mahadsan tahay. farxadda dadkaydu ay heleen iyo farxaddaan helay ay isu dheelitiran yihiin. sidaad u farxdeen baan ugu farxay inaan mar kale dib ugu soo laabto aawada anoo muddo 10 bilood xabsi ku jiray aan helo xorriyadaydi. aad baan ugu faraxsanahay. waktigan aan joogo wakti ku habboonna way ahayd runtii. marka dadkayga iyo aniga iyo guud ahaan waxay dhammaanteena wada tahay farxad. cabdikariin, sida aan la soconno dalka Ethiopia waxaa ka dhacaya isbedelo waaweyn oo uu hormood u yahay amaba uu horkacay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed. haddaba adiga sii deyntaada kaalin intee la-eg buu ku leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia? mase jiraan dawlado kale ama shakhsiyaad iyaguna gacan ka geystay in aad xorriyadaada dib u hesho? horta sii deyntayda alawal ilaahay waa ku mahadleh. ilaahay baa suuro geliyey oo qadar ilaahay baa marka horena aan ku galay xabsiga iyo gacmihiisu kaydiiyey. markii dambena ilaahay subxaana watacaala ayaa iga soo daayey. intaa kadib qofka soo deyntayda lahaa in la ifasaxo xorriyadaydii la siiyo ra-iisul wasaaraha, isagaa lahaa. cid kula talisay iyo cid kaleeto oo la kaashaday iyo cid ka codsatayna midna ma jirin. isaga ayaa iska lahaa. qabashadaydiina alla qadartiday ahay. soo deyntaydana sidoo kale ilaahay unbaa awoodan iskale oo isoo daayey. dhinaca kale ra-iisul wasaaraha waa qofka keliya ee hawsheeda sidan u qorsheeyey ee go-aamiyey iyo ogolaaday xorriyadaydii dib igu soo celiyay. waxaana la kulmay shalay taariikhda 30 bishan hadda 6 ay ahayd. marka cid kale oo u kala tashaday iyo cid kale oo la qorshaysayna ma jiro. muddana isbedelkan wuu waday. waxaana lahaa baan filayaa qofkii ugu dambeeyey dhinaca ururka ogonlef xabsiga kusii jiray yaan ahaa. marka hawshaas sidaas ay ra-iisul wasaaraha qorshaysay, qorshayaashiisiibana kamid ahay. waxaana nahay qofka uu la kulmay si toos ee Soomaaliya uu kala hadlay arrimaha masiirka ummadda iyo gobolkaba. cabdikariin, waxaa jira markii lagu xiray ummadda Soomaalidu meel kasta oo ay joogaan aad iyo aad bay arrintaas uga dareen celiyeen. waxaana jiray fikiro kala duwan oo mararka qaarkood jihawareer ka dhex abuuray Soomaalida. cabdikariin, yaa ka mas-uula xarigaagii oo loo haystaa ama loo qabsanayaa? sideese ayuu u dhacay xarigaagu? waad mahadsan tahay. xarigayga dee waxaa iska lahaa qoladii maamulkii farmaajo. waxaa hawsheeda gacanta ku hayay hay-adda nabad sugidda sanbulisa madaxda ka ahaa. kaalxaya iyaga iga soo qabtay 3 habeen bay igu hayeen. dhibaato badan bay runtii igu geysteen. markaa kadib anigoo ka tiinadaysan indhaduuban bay xamar ii soo qaadeen. midka jilacow baa laigu riday. 3 habeen baa laigu hayay. 20 bishii agosto ee sanadkii hore ayaa bacdal salaad subax midka laga soo saaray anigoo indhaha ka xiran, gacmahana ka xiran. sidaasna laigu wareejiyey ciidamada Itoobiya. muddadii aan xidhnaa oo 6 beri gudaheeda ahayd Soomaaliya oo 3 xamar ku xidhnaa, 3 aan gaalkacyo ku xidhnaa. waxay la tahay mas-uuliyaadku way ogaan kareen sida madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo taliyaha nabad sugidda iyo cid kale oo ka agdhaweyda. marka siday uga tashadeen iyo go-aanka qaabkay u wada qaateen ma garan karno. laakiin mas-uulka ugu dhow gacanta igu haya ciidankiisu hayay maamulahaya hawsha waa taliya nabad sugidda sanbeleshi. madaxda kalena dee waxaan filayaa la qiyaasi karaa inay taladu ka dhaxayso. laakiin mid walba miisaanka doorku ku leeyahay bal waan ogaan doonaa insha allah. muddadii aada xabsiga ku jirtay kasoo bilow gaalkacyo ilaa iyo Ethiopia, wax jir dila oo weyn oo lagu geystay ma jiraan cabdikariin? wax iga muuqdo oo weyn oo saameyn ugu yeeshay ma jiro. waxyaabo yaryar way jireen oo dee iga gaaray xagga dhinaca gaalkacyo qabashadeedii markii ugu horreysay. laakiin intaan kusoo wareegay Ethiopia wax dhib ah oo jir dil oo
gaaray ma jirin wax jabdila oo ka badan dee qaabka aan u xidhnaa iyo sida la ii indhaduubayay iyo sida la ii katiinadeynayo iyo sida la ii gabadhuubahayo iyo waxyaabahaas ihaanadaas wax ka badan ma jirin marka taasna waxa la qadaray unbay ahayd haddana waxaas oo dhan waan ka fiicanahay maskax ahaan iyo mooraal ahaan iyo caafimaad ahaan jir ahaan all waan fiicanahay xaaladaydu aad bay wanaagsan tahay waxaas oo dhan ilaahay waa caafi aada iyo aad cabdikariin haddii hadda lagu soo daayey oo banaanka aad joogto magaalada addis ababana aad ku sugan tahay qorshahaaga mustaqbalku muxuu yahay oo ku xiga waxyaalaha aad is leedahay waad ku dhaqaaqi doontaa maalmaha soo socda iyo waktiga xiga maalmaha hadda waxaan ku diyaarin doonaa insha allahu tacaala safar aan sii mari doono nairobi markaa kadib waxaan soo booqan doonaa shacbiga soomaaliyeed iyo golayaashiisa oo runtii noloshadeydii xaraaladooda meel aada u badan ay gaadhay garab istaaga hiil iyo hooba anigii ilmahaygii iyo ehelkaygii iyo qadiyadaba runtii aada u garab istaagay waxaana nahay walaalka soomaaliyeed oo si fiican loogu hiiliyey waxayna dadka soomaaliyeed xaq ugu leeyihiin insha allah inaan intaan gaari karana soo booqdo lasoo maaragtay farxadda la qaybsado sidaan dhammaantaan ufaraxsannahay ufaraxsan yihiin marka insha allah waan lasoo qaybsan doonaa ilahaasaan soo hormari doonaa haddii aa la yidhaahdo goboladaas intii aan ka gaari karo intaan soo salaami karo intaan dadka soomaaliyeed aan usoo taanageyin karo inahaas oo dhan waan marmari doonaa insha allahu tacaala safarkayguna wuxuu ka bilaaban doonaa addis ababa nairobi ilaa ina soomaaliya intaasaan mari doonaa wixii intaa igu xigana waanu marki doonaa haddii aa la yidhaahdo wuxuu noqon doonaa socod booqasho iyo walaalaha soomaaliyeed inaan runtii qola walba aan halkooda ugu tegi doono wixii suuragal ii noqdo ilaahay waafaji cabdikariin waxaa nagu maqaalo ah in ay jiraan shirar ay leeyihiin mas-uuliyiinta ururka ONLF dhinaca kalena wararku waxa ay sheegayaan in ay dhacayaan amaba ay socdaan shirar u dhexeeya dowladda Ethiopia iyo ururka ONLF haddaba fikirkaaga ku aadan arrimahaas muxuu yahay anigu mar walba waan soo dhaweynayaa in la wada hadlo oo xaaladan in badan baa dagaalkani soo jiray dagaalkan qadiyadana waa dagaal waqti dheer soo qaatay oo isdhaxal reebay mar walbana u baahan in go-aan iyo xal siyaasi laga gaadho marka waan soo dhaweynaya wax kasta oo wada hadalaho xal loogu raadinayo qadiyadaas muddada badan dagaalkeedu taagnaa dadkeediina iska rafaaday aad baan usoo dhaweynaya runtii waxaanan ilaahay u baryayaa inuu najaxo wadahadal kasta oo waafaqsan nidaamka iyo xaqa oo laga galo qadiyadaas cabdikariin muuse qalbi dhagax aad baad u mahadsan tahay su-aashayda ugu dambaysa guud ahaan ummadda soomaalida ee ka dareen celisay xarigaagii aadkana ugu faraxday soo dayntaadii cabdikariin maxaad leedahay ama aad kula dardaarmaysaa ama aad ka codsanaysaa waad mahadsan tahay su-aal fiican weeye dadka soomaaliyeed runtii iyagoona u kala hadhin ama shanta soomaaliyeed shacbigooda iyagoona u kala hadhin waxay ka diidiyeen kelimadii halkii igaga dhacday nimanka odayaasha ay sameeyeen runtii aada iyo aad baan ula socday xaaladda inkastoon xilliyadii hore war badan ka haynin haddana waan ogaaday heerka dadku gaaray dadka soomaaliyeed waa walaaladay aada iyo aad baanan ugu faraxsanahay sida ay igu hiiliyeen iyo sida ay ii garab istaageen waxaanan u celinayaa maxadaan wax soo koobi kara jirin ilaahay baa miisaankeeda qiyaasi kara ayaga iyo mas-uuliyaadkii gaar ahaan labada gole ee shacbiga soomaaliyeed golaha insheege sare iyo golaha hoose magacyadan inta badan wada iga dambeeyeen baan filayaa aada marka horena ulama haysanin laakiin ayaguna dareenkooda muujiyay dagaal badanna galay go-aamo waaweynna soo saaray aada iyo aad baan ugu hambalyeynayaa aada iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay tallaabada ay qaadeen ilaa hadda iyo qiirada ay muujiyeen aniguna waxaan u ballan qaadayaa inaan ahaan doono walaalkood garab taagan oo ula dhaqmi doono si sinaan iyo cadaalad ah oo ka fayow qabiil gobolaysi iyo qof jeclaysi way ii sinaan doonaan shacbiga soomaaliyeed iyo qof kastoo wanaagooda ka shaqaynaya salaantaydu ma aha mid dhammaan doonta laakiin waxay noqon doontaa mid weligeed taagan iyo inaan garab istaago qof kastoo soomaaliya dhiban baan garab taagnahay kii xiran baan garab taagnahay kii baahan baan garab taagnahay kii ciil qabaan walaalkii hiil iyo la garab taagnahay marka dareenkaygu waa mid aan qiyaasi kara jirin aad marka qalbigaaga kusoo dhacdana runtii waan maaragtay waan qiiroodaa aad baan isu bedelaa marka dareenkaygaas oo sii socon doonaa insha allah laakiin hadda waxaan leeyahay walaalayaal guuleysta waxaana ilaahay uga baryayaa dadka soomaaliyeed ugu yaraan qalbigaygu siduu yahay
qalbigooda in iyagana ilaahay ka dhigo oo u xaaraan qof walba hadday jiraan kuwa iga qalbi fiican oo iga maaragtay sawaabka iga dhow hadday jiraan ilaahay iyaga iyo anigaba inuu ka ugu wanaagsan qalbigiisa inuu inaga wada dhiga qalbigeenna inuu walaalowno inahaasaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax